أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin baa khiyaarta qiimaha badan leh allah idin barakeeyo. waxa waxaan leenahay dalka waa lagu soo duulay, dalkeena waa lagu soo duulay. dadka Soomaaliyeedna majoritigoodu way daawanayaan, shacabka Soomaaliyeedna way daawanayaan. dalkeenana waa lagu soo duulay. ilaa maanta waxa weeye ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amnigu waxay fashiliyeen isku daygii labaad bay fashiliyeen laba isku day ayaa waxa weeye maxaa ku raahday runtii inta aynu ka warhayno inta aynan wali wararkeeda helin waxa weeye maxaa ku raahday alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaada ugaase iyo dhamaantiinba inta aynu ka warhayno laba isku day ayaa magaranaysa ilaa caawa la fashiliyay. كلي وحوي اسكو دياب كلا او بدنا way jiraan kooxdii xaraash kooxdii halaaga qaran waxa weey maxaa ku raada waxa ay isku dayayaan dalka inay inqilaabaan oo ay waxa weey maxaa ku raada rajo kale ma leh rajo kale oo siyaasadeed ma leh ninkii odayga ahaana waxa weey maxaa ku raada waa ku daaban yahay oo isaga ay iska soo horeysiinayaan laakiin falillahi alhamdu ilaahay waxa mahadiisa in ciidamada amniga dhamaantood ay ka go'an tahay in ay difaacaan dalkooda dadkooda iyo diintoodaba ayna u dhintaan waxa weeye maxaa kula guulaha isdaba jooga ah saacada waxa weeye habeen barka waxa weeye magaalada Muqdisho saasay u gaafureegayaan laba isku day oo magaranaysa midna la doonayay in hub lagu soo geliyo waad aragteen baan u malaynayaa oo magaranaysa Kenya dhinaceeda laga soo geliyay dhinaca Puntland waxa la leeyahay ciidamadii magaranaysa galmudug ay siiyeen maxaa kula waa la soo wadaa oo la soo gudbinayaa waxa weeye laakiin hadda waxa ay ciidamadu qaban gacanta ku hayaan oo ay soo gudbiyeen oo magaranaysa taliya Farxaan uu inoo soo gudbiyay waxa weeye laba dhacdo mid waxa weeye maxaa ku raday mid baabuur hub lagu soo qariyay oo aad wada aragteen in ay waxa weeye maxaa ku raday baabuurka ay qabteen oo ay fashiliyeen oo magaranaysa loo siday kooxda waxa weeye maxaa ku raday halaaga qaran xaraash qaran waxa weeye maxaa ku raday qoladaas loo waday iyo magaranaysa Al Jazeera meel u dhow si halka ay qaska uga bilaabaan. isku dayga labaadna wuxuu ahaa waxa weeye maxaa ku raday Malaysia loogu talagalay in Robow Abu Mansour agoninkii magaranaysa argagixisada ahaa in ay waxa weeye si ay dawladda u magaranaysa weak point ay uga helaan in ay waxa weeye maxaa ku raday gurigii kala baxaan iyagana waa la fashiliyay waa la qabtay marka alxamdulillahi rabbil caalamiin wuu socdaa halkan kuwa socdaa duco iyo dadaal wada jira lagu dawooba waxaynu rabnaa inaynu insha Allah bidmillahi kariim aad aynu magaranaysa ugu ducayno qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeedna taageerada ciidamada waa inuu soo qoro qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed soo qor waxa weeye maxaa ku raada ciidamada qalabka sida waxa weeye waxa habeen iyo maalin waxa weeye ma seexdaan oo ma harsadaan oo ma hooydaan waxa ayna magaranaysa maxaa ku raada diyaar u yihiin inay ku dhintaan difaaca sharaftiina iyo karaamadiina shacabka Soomaaliyeed idinkoo guryihiina hurda idinkoo waxa weeye maxaa ku raada danaysanaya idinkoo shaqaysanaya ayaa waxa ay diyaar u yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed in aan waxa weeye dib loogu celin 1990kii soddon sano ka bacdi 2000 iyo maxaa ku raada 2020ka inaan dib loogu celin burburkii baabi barakaci maxaa ku raada qaxi dhiigi waxa weeye dhaci boobkii loo geystay ummadda Soomaaliyeed inaan dib loo soo celin oo caasimadda Soomaaliya sharafteeda iyo sharafta karaamada ummadda Soomaaliyeed lagu cayaarin ayay u taagan yihiin waxay naga rabaan heel waxay naga rabaan waxay naga rabaan inaynu iskarab taagno waxaynu rabnaa inaynu u ducayno wax sida darteed qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed waxaynu ka rabnaa insha Allah bismillaahir kariim inaad taageerada ciidamada aad soo qorto dardaaran u soo dirto garanaysa iskarab taageenu inuu muuqdo insha Allah bismillaahir kariim ayaa la inooga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waayo waxa weeye walaalayaal dalka waa lagu soo duulay dalka ma aha waxa is haysta ma aha dad Soomaaliyeed ma aha qabiilo ma aha waxa weeye maxaa ku laakiin waxa lagu soo duulay dalka waxa ku soo duulay quwada shisheeye ayaa ku soo duulay horena dawladnimadeena inooga burburiyay laakiin aynu garan weynay inagu dawladnimadeena hore cadow shisheeye ayaa burburiyay siyaasad international oo muddo dheer laga soo shaqeynayay oo dhaqaale badan lagu bixiyay ayaa qarankeeni burburisay oo sababtay 30 sano inuu qaran laan ahno haddana waxa laynoo quuri laayahay iftiinka yar inta yar ee soo baxday ayaan laynoo quurayn waayo waxa laynagu ogaaday meel baa laynagu ogaaday
إيل بالينو قضي واللينا آسي وحل قادن كري لا يا دتك الآسي آخر الله دري إيل كل مقرنسة لقليه لجو أودي سدابة أصار نقدين سدابة ودغدغاقين سدابة قبرك وقصوا بحين سدابة أودنو ياشان سدابة مقرنسة محاكل هذا هنك النوع عن سهو سدا يكون عظيم siday ku dhacday waa la yaaban yahay marka waxa la rabaa in godkii khasab la inagu celiyo godkii in khasab si khasaba godkii in la inagu celiyo ayaa la doonayaa waa inaynu ka dhiidhino waa inaynu ka dagaalano waa inaynu ka soo jeesano gabdhaha Soomaaliyeed waa inaad soo qortaan taageerada ciidamada qalabka sida alaaso aad baa ku salaamaya cabdi aad baa ku salaamaya walaal waa inaad soo qortaan dhamaantiin qof walowba waa inaad fariinta ku soo qortaa Facebook-gaaga taageerada ciidamada oo aan magaranaysa maxaa kula moralka u dhisnaa iyaga ayaa diyaar ah inay xabada isu dhugaan bay diyaar yihiin inay cadowga ummadda Soomaaliyeed ka hortagaan bay diyaar yihiin inay shisheeyaha ay magaranaysaa dhabar jabiyaan oo dhagartooda ay ku celiyaan bay diyaar yihiin laakiin maxaa laga rabaa waxa laga doonaya walaal taageera laga doonaya waxa laga doonaya inaad niyadda u dhisto waxa laga doonaya inaad tusto inaad magaranaysaa maxaa ku lahada aad garab taagan tahay ciidamadaada waxa weeye maxaa ku lahada habeenkii iyo maalintiiba taagan يا أديك كوتاجن شرفت هذا كرامة هذا الدفاعية وحوي إناد مقرنة ستاكتو أيا لقارها ولا مركب بلي صاقرة إن أن عيدا ماذا قلب مقرنة قبيالة نداغي ويدو قرن كواتان كدالة قصارة أيان كقاضني وحوي ويناقا ما أنت هالكا كوشرتا عدافع أفرت مقرنة شوية عالم كأيين كلا تشوقنا ظروفين كوة نولهي وظروفين كوة نولهي وحا إنا قليي وحوي محاكولا ذا نين مقرنة هان سياسة شاقنا يا ولكن عدو ku shaqaysanayo cadow baa ku shaqaysanaya inagana wuxuu isugu kaan sheegay siyaasi inuu yahay inala tola inagu beer la xawsaday tolnimo tol baynu nahay reer qurac baynu nahay reer qasacban xagu ina dhigay markaa xagu ina dhigay walaalayaal xagu ina dhigay billahi alaykum waxa way maxaa ku leedahay adduuniya aakhiraba waa inoo diiday ifkay inagu cadaabeen ilaahay ha cadaabe ifkay inagu cadaabeen waxa way maxaa ku leedahay ilaahay ha cadaabo waxa way ma garanaysaa maxaa ku leedahay caruurteeni way gaaleeyeen criminal bay ka dhigeen xabsiyada caalamka ku rideen magafayaal bay ma garanaysaa isbeerbaar bay ka dhigeen dadku ay ma garanaysaa maxaa ku leedahay dadka ma garanaysaa loo isticmaalo oo waxa weeye maxaa kula kaliyaha iyo beerka iyo lagala baxo ayaa ubadkeeni ay ka dhigeen nimankii ma garanaysaa tolbeelayay tollaayay in laha maanta halkii bay doonayaan gacli macaasimadeeni sida ka dhigan waad ogeydeen sida ay caasimadeeni ka dhigeen iyo muuqa ay u yeeleen caasimadeeni waad ogeydeen walaalayaal waxaynu u baahanahay inaynu difaacano waxa weeye maxaa kula maanta iftiinka ay reeno soo baxay waxa weeye maxaa kula dhismayaasha quruxda badan leh amniga qiimaha badan leh waxa weeye awoodda ciidamada haybada iyo karaamada dhaqaalaha kobcaya inaynu waxa weeye dalkeena aynu difaacano ayaynu baahanay dalkeena inaynu difaacano guul baynu leenahay ciidamada qalabka sida waxaynu leenahay ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan kuwa militariga kuwa magaranaysa maxaa nabad sugida kuwa booliiska dhamaantood waxaan leenahay waxa weeye maxaa kula waa idin garab taaganahay taliyayaasha ciidamada dhamaantood ciidamada dhamaantood waxaan leenahay hambalyo Allah idin xiftiyo Allah idin barakeeyo waa wiilal dhalinyaro ah haday odayaal noqon lahaayeen wayna iibsan lahaayeen haday odayaal noqon lahaayeen wayna iibsan lahaayeen laakiin waxa weeye hal oday baa ku jira baan u maleynaya waa xijaar inta kale waxa weeye waa dhalinyaronimaday inuu magaranaysaa sharaftooda waayo mustaqbalkooda ka fekerayaan mustaqbalka ummadooda ka fekerayaan mustaqbalka waxay ka fekerayaan maxaa ku leedahay magaranaysaa ubadkooda ka fekerayaan aayaha dalkooda ka fekerayaan way ka maskax wanaagsan yihiin odayadan kharfay ee magaranaysaa waashay ee kursiga u waashay ee dariiqa ay u marayeen aan garanayn ee doonaya inay inaga xaabada dabka inagu shidaan xaabana ay inaga dhigtaan waa inaan walaalayaal isu taagno waxaan aad iyo aad uga xunahay inta ka bacdi aynu magaranaysaa maxaa ku leedahay aynu insha Allah bismillaah kariim aynu waxa weeye maxaa ku leedahay u taageeraynaa oo aynu leenahay free Abdi Samad free Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad oo lagu afduubay magaalada Nairobi oo loo afduubay taageerada qarankiisa u fiirsada taageerada qarankiisa marar badan loo hanjabay haddana aan xaaladiisa la ogeyn waxa weeye walaalayaal waa inaan u ducayno in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhagarta uu ka soo daayo dagaalka laynagu hayo meel walba uu ka socdaa Nairobi buu ka socdaa waxa weeye Dubai buu ka socdaa wuxuu ka socdaa London buu ka socdaa meelo badan oo kale uu ka socdaa waa dagaal caalami ah ummadda Soomaaliyeed waa dagaal caalami ah dagaalka caalamiga waxaynu kaga hortagi karaa wadajir baynu kaga hortagi karaa wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan
وين دلكينا وذا شر وين دعين وين استاغ وحوي عد إن إسكان هرتاي كرتمش أوفر صدا ولا شيء يراي أفغانستان إما جرنسا لبعتن كسنة دفيس كوتشري بالله عليكم فيري where's the super power where's the American where's the إنجليز where's the middle Europe where are they حاجة كده بيجي وحوي دلكينا وين نصابحنا دلكينا وين نستاجنا دلكينا وين ندفعنا شرفت عليه سلكم رجل والصومالي ضد بيا هاي عجيبة والله قال شريه أنا لقى بقشري قال شريه أنا أيا لقى بقشري ما أنت نقول دافع عالم كم قرن ساعة شوقنا أو وذا البحة أو وذا متعلمين أو وذا أقوياءنا أو وذا علماء أيا دلكيني وحوي سيدي الله رب الجيالية وسيدي سبحان الله سيدي الله رب بالدون يا دلكينا نقول سوتشيدنا inagoo arkayna ayaa rabaa dawladeena inta la rido in inaga sidii la doono la inaga yelo dalkeena la qaybsado oo dekadaheena la qaato oo badaheena la qaato oo beeraheena la qaato oo macaadinteena la boobo ayaa la doonaya adoo soo jeeda mawaadin adigoo soo jeeda ayaa laga doonaya sidee bay ku dhacaysaa walaal waa inaan fadhiga ka kacno waa inaynu gacdiyaha ku dagaalano waa inaynu ducada badino waa inaynu habeenkii soo jeedno waa inaynu ciidamada taageerno waa inaynu iskarab taagno ciidamada maxaa kula farxaan qaroole taliyaha magaranaysa maxaa kuladay ciidamada gorgor magaranaysa maxaa kuladay taliyaha booliiska qaybta gobolka banaadir farxaan qaroole he's a hero wallahi waa hero wiya billahi tallahi waa geesi dhalay weeye maxaa kula general odawa waa geesi dhalay weeye fahad yaasin waa geesi dhalay weeye raggaasa laynoo quuri laayahay wiilasha yaryar ay noo soo baxay baa laynoo quuri laayahay wiilasha yaryar baa laynoo quuri laayahay walaalayaal saacadu waa saacad dambe raala ahaada waxa darska ugu qaylinaya saacadahaas dadkaas laynoo quuri laayahay ma garanaysaa maxaa kulado waxa waayo waxa weeye waxa laynagu ogaaday meel baa laynagu ogaaday waxa la garan waaye waxaynu ahayn marka waa inaynu soo noqono insha Allah waa inaynu soo noqono waa inaan dalkeena difaacano waa inaynu ma garanaysaa maxaa kulado waa inaynu qof walba laba qodob baynu caawa balanteenu weeye firi Abdi Wahab qofka wasta oo mawaadin oo soo qor oo farwaaweyn ku soo qor Facebookaaga waa inaynu Abdi Wahab aynaan ka seexan insha Allah bismillaah kariim ta kale ciidamada amniga qaranka qaybahooda kala duwan dhamaantood waa inaynu hambalyo u diraa waa inaynu shacabka Soomaaliyeed baa idin garab taagan waayo dad Mooryaana oo kala qaybinaya oo kala qoqobaya oo qabyaalad virus corona viruska qabyaalada ku akhrinaya oo roor qurac baa tahay reer qasax baa tahay dhaqaale qaado inta Soomaaliyeed baa lagu siinaya maxaa ka galay ayaa habeen iyo maalin ku afuufaya waa inaynu waxa weey ma inagu lacag siin mayno ma siinayno lacag wadama ma hayne waa inaynu codka ku taageernaa waa inaynu gulbad wad magarasa xaq baad ku taagantihiin waa inaynu raahno aad iyo aad firi Abdi Wahab aad baan idin salaam iyo waqtiga ugu yar saacaduna waa saacad dambe deriska iga xumaaday oo dhibsanaya wajazaakumullahu khayr guuleysta baan inay si shargeey meel walba geeya magarasa Soomaaliya ha guuleysto Soomaaliya ha guuleysto cadowgu ha jabo ciidamadeenu ha guuleysteen madaxdeena qaranka ee wanaagsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha guuleysto cadowgeenu ha jabo kan dhow ka inoo eg iyo kan shishe intuba ha jabeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhigartooda ha ku celiyo maxamed xuseen roobe allah soo hadeeyo hadaanu hanuunayna allah inaga qabto isaga iyo canaasiirtaba allah inaga qabto shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa culimo iyo caamo iyo cuqaal iyo cid walba waa inaynu u soo kacnaa dalka waa inaynu dalka u kacnaa waa inaynu isu taagnaa ceeb bay inagu tahay in Iswaan iyo magaranaysa Francisco magaranaysa Mandela inay dalkeena magaranaysa ka ergeeyaan inagoo culimo leh inagoo dhaqan leh inagoo khubaro leh inagoo magaranaysa nooc walba leh aad bay ceeb inoogu tahay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamaya guuleysta baan idin leeyahay gutuga ayaa tahay buu leeyahay iska jooji waxa aad iyo aad baan idin salaamaya deriska iga cabanaya wajazaakumullahu khayr wa ahsanallahu ilaykum wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh